iyadoo maanta guud ahaanba gobolka Togdheer iyo nawaaxigiisa laga tukaday salaada ciida bisha barakeysan ee Ramadaan ama Ciidul Fadriga ayaa kumanaan ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay isugu soo baxeen goobihii loo caymay garoonka kubadda cagta Lamsi ee magaalada Burco oo ah goobihii ugu dadka badnaa ayaa waxa mas'uuliyiintii salaada ciida kula tukaday bulshooyinka gobolka Togdheer ka mid ah wasiirada wasaaradaha cadaaladda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco taliyayaasha rugaha ciidamada iyo qaybta iyo sidoo kale culimada gobolka Togdheer ka hor salaada ayaa waxa fagaaraha garoonka hadal kooban ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Cismaan Geeljire isagoo bulshooyinka gobolka Togdheer ugu hambalyeeyay munaasabadda ciida awgeed sida ay ugu soo xaadireen garoonka magaalada Burco waxaana uu bulshooyinka gobolka Togdheer guddoonsiiyay salaan uga siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi isaguna hadal ka jeediyay barxadan ayaa ganacsatada waaweyn ee gobolka Togdheer ugu baaqay inay dadka danyarta ah qiimo dhimis u sameeyaan si ay u tahli karaan inay iibsadaan maciishada ku qaaliga waxa uu walaasabkani sheegay in xilligan ay dadweyne badan tahli kari waayeen inay caruurtooda u iibiyaan ciida waxaana uu sidoo kale baaqaas u diray ganacsatada inaan ay u naxariistaan dadkooda jilicsan si Ilaahay iyagana ugu naxariisto duqa degmada Burco Master Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab ayaa si adag uga dayriyay xaaladda deegaanka oo uu sheegay inuu marayo heer sare ah loona baahan yahay in lagu sameeyo gurmad loogu gurmanayo deegaanka waxa uu sheegay maayirkan inuu xilligan qaadi doonaan olole ballaaran oo loogu gurmanayo deegaanka isagoo maamulada deegaanada iyo degmooyinka gobolada dalkana u diray baaq uu sheegay inay ilaashadaan kana ilaaliyaan xaalufka dhirta shabakada caalamiga ah ee Burco le mikrofoonka la dhaqaaday mas'uuliyiinta iyo dadweynaha kale ee ku sugnaa munaasabaddan ciida ayaa iyagoo cabiraya afkaartooda waxa ay yiraahdeen sida tan بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك بان ليهي اللهم صل على محمد سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك كل عام وانت بخير. halkan waxaan ka hambaleynayaa dhammaan shacabweynaha islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadweynaha reer Soomaaliland dabadiyo gudo waxaan leeyahay ciid mubaarak كل عام وانت بخير. ilaahay waxaan idinka baryayaa in ilaahay ciideeda barwaaqo iyo bashbash noo gaarsiiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa in dalkeena ilaahay inoo barakeeyo. ilaahay waxaan ka baryayaa dadkeena ilaahay inuu walaaleeyo. ilaahay waxaan ka baryayaa in dawladdeena ilaahay inoo barakeeyo. halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo madaxweynihii hore ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Daahir Riyaale Kaahin iyo Faysal Cali Waraabe iyo dhammaan labada gole ee baarlamaanka dhammaan shacbiga reer Soomaaliland waxaan ka salaamayaa gobolkaygii Togdheer ee aan ku dhaadan jiray waxaan aad iyo aad leeyahay reer Togdheerow ku ciida barwaaqo bashbash iyo karaamo ilaahayna dambigeena iyo kuwaalidka ma dhaafo wixii baqana ilaahay naga shaafiya amiin tayda wixii naga geeriyoodana ilaahay naxariis ka waraabiyo annagana wax khayr qaba hayna la kulansiiyo aniguna xilka hadii xukmayo waxaan doonay soo sharaxo madaxweynaha mustaqbalka ee xisbiga udub waxaan leeyahay insha Allah
dambeyntii waxaa weli ka soconaya magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer dabaaldegyada farxadaha iyo damaashaadyada loogu maamuusayo munaasabadda ciidulfadriga xafsaan faarax cabdulaahi xafsaan nakruma shabakada caalamiga ah ee burco online magaala madaxda gobolka togdheer ee burco.